بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. صونك عن صومي محابورية ولا ليال صادوا وقتهين إلهي سبحانه وتعالى وحو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن كفر ليالي إلهي وحوي رسولك سكوي رمييو بالشاس أيو إذن كفر ليالي سيدي أمضيه كلام ما دركتي واجب يالي أو وفر ليالي. إلهي سبحانه وتعالى آيات كلام وحوليهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إلهي يوحوي يا رسولك سكوي رمييو حوي إلهي أهجان سما يلا رسولك سودقنا صلى الله عليه وسلم أهجان سما يلا وحوي ولا تبطلوا أعمالكم عمل كيننا هبورننا أو وحوي هيسك خربنا هذا محوية هي وحبورية عملك صونك. علماء waxay u qaybiyaan waxa weeye laba qaybood marka koobaad qaybta koobaad waa wax soonka buriya waxa weeye kafaaro iyo qadana uu ka waajibayo yani wax soonka buriya oo kafaaro iyo in la soo celiyo ay ka waajibayso oo ay kamid yahay jimaaca iyo waxa galmoodka wixii la midka. sidoo kale waxyaabaha buriya qaybta kale waxa weeye wax burinaya soonkii laakiin in la soo celiyay kama waajibayso laakiin soonkii nuqsaan baa galaysa. hadaba waxyaabaha soonka buriya waxa kamid ah jimaaca oo galmada ah. xadiis badan ayaa tilmaamaysa qofku marka hadii uu la yimaado arinta iyada ah waxa weeye waxa laga maarmaan ah horta koow u dambaabay, laba waxa weeye soonkii waa ka jabay oo waa ka buray, saddex waa lagu leeyahay soonkii Ramadaan oo qal uu soo celinaya. waxa kale oo lagu leeyahay kafaara ayaa ka waajibtay. kafaaradaasi saddex qaybood weeye cidqu raqaba kulli waqtigan la joogo hadda ma jirto waxa weeye mubaasharatan wuxuu gudbayaa talabaad oo ah waxa weeye siyaamu shahrayni mutataabi'in laba bilood oo isku xigtay inuu soomo. haddii uu kari waayo ay ku adkaato waxa weeye waxa uu gudbayaa in uu la yimaado maalin kasta waxa weeye 60 miskiinan inuu waxa weeye uu qoodiyo ayaa aha tasaddexaad oo waxa weeye ku waajibaysa. hadaba kaas wuxuu ahaa shayga koobaad oo buriya bisha soonka ama soonka qofku sooman yahay. talabaad waxa weeye cunitaanka iyo cabitaanka. in aad cabto aad cunto adiga oo waxa weeye mutaamida oo qastaya. ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عبا أو عنا حلقة عنتانك إلى أو حوي مالك هبينكو وكعداضو مالك أما مالنتو أي حوي كعداضو هبينك إلى أو حوي هبينكي عداضو ويسبدلو مالين isla markaana waxa bilowday xilliga waa joojinaysa waxa weeye waxa ku bilowday soonkii. idan hadii uu qofku u la yimaado waxa weeye cunto iyo cabitaan iyo wixii la midka isagoo oo waxa weeye u qasdaaya way ka jabaysaa soonkii uu ka jabaya. laakiin hadii uu isagoo ilowsan u cabo waxa weeye kama jabayso taana soonku kama buraayo. waxa noo tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhahay waxa weeye qofka isagoo ilowsan cuna ama caba waxa weeye ha haysto soonkiisa hana ilaashado waxa weeye soonkiisi waa u jira ilaahay baana waraabiyay oo waxa weeye cunto siiyay. sidoo kale waxyaabaha soonka buriya waxa kamid ah waxa weeye biyo dajinta. qofku inuu biyo iska keeno oo waxa weeye shahwad intuu sameeyo uu biyo iska keeno ama gacanta iska keeno ama waxa weeye mubaasharo iyo waxa weeye wixii la midka ku timaado qof kasta oo waxa weeye arinta camdi isaga keena waxa weeye isagana way ka buraysaa. sidoo kale waxyaabaha buriya soonka waxa kamid ah waxa weeye at-taqayyu camdan qofku inuu waxa weeye mantago
oo waxaa weeye hunqaaca uu la yimaado isagu iska keenay oo aysan qasab ku noqonin in ay iskeed u timaado. haddii ay iskeed u timaado waxaa weeye kama burayso. waxaa weeye nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam man istaqaa'a camdan waxaa weeye falyaqdi man istaqaa'a camdan falyaqdi qofka waxaa weeye isagu iska keenay mantaga iyo waxaa weeye sooqaadka ha qalleeyo, soonkii waa lagu leeyahay, ilaahayna ha u toobad keeno. sidoo kale waxaa weeye qofkaas aan isagu iska keenin wuxuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam man daracahu alqay'u waxaa weeye falaysa calayhi qadaa qofka isagu waxaa weeye soo gujiyey isagoon isagu iska keenin waxaa weeye awood ka sarraysay ay soo gujisay oo sooqaad ka yimaaday qofkaasi waxaa weeye soonkii ma qallaynayo. sidoo kale waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid ah qofku inuu waasho waalidaas walow laxda daqiiqadba hadduu doono waxaa weeye ha waasho. qofkii haddii uu miir ka tago waxaa weeye caadi u dhaqaaqo waali baa la yidhaahdaa, waalidaasi soonka way jebinaysaa. sidoo kale haddii uu qofkii iqmaa uu ku dhaco oo waxaa waaye iqmaagii isagu isku keenay waxaa waaye way ka jabaysaa. sidoo kale sukri hadduu ku dhaco uu isagana istikhraamiyo oo waxaa weeye isagu isku gabood falo oo isagu isu sukhraamiyo isagana soonkii waa ka burayaa.